nabadda wadayaal meel walba aad joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa Warkan TV kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta arrimaha Soomaaliya iyo caalamka barnaamijka caawa intiisa badan waxaan kaga hadlaynaa dhacdadii maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo qaabkii ay wax u dhaceen iyo meesha ay ku dambeeyeen sidoo kale waxaad ku daawan doontaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo wali ku jira shirkoodii iyo midowga musharaxiinta oo ku booqday goobta uu shirkaasi ka socday qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijka iyo falaqayn dheer oo ku saabsan arrinta baarlamaanka haddaba haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddaad hore nooga joogtana waad mahadsan tahay dhammaantiina isku duuban waxaad leenahay nagala qayb qaata horumarinta channelka muuqaalka like saar sidoo kalena ku faafi baraha bulshada waa habeen sabti sii baxayso taariikhduna ku beegan tahay 27ka bisha 3aad sanadka 2021 aan guda galo barnaamijka xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ku kala tagay kulanka qorshuhu ahaa inuu ku yeesho xarunta Villa Hargeysa kadib markii la isku fahmi waayay ajandaha shirka oo xildhibaanadu qaar sheegeen in uu ahaa mid qarsoon oo huwan muddo kororsi xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hor istaagay guddoonka baarlamaanka inuu furmo fadhiga shakiga badan maanta dhaliyay ee horey loo sheegay in looga hadlayo arrimaha cudurka COVID-19 xildhibaanada mucaaradka ayaa ku qamaamay goobta ka soo horjeeda guddoonka baarlamaanka ee xeer nidaamyaasha ay ku howlgalaan waxaana ay buuq ku abuureen guddoonka baarlamaanka markii uu soo galayba taasoo in muddo ah la isku hortaagnaa guddoonka baarlamaanku isku dayay in xal laga gaaro sidii xildhibaanadu ay nidaam u fariisan lahaayeen buuq iyo jahwareer ayaa xarunta dhan qabsatay waxaana baaqday kulankii waxaana meesha iskaga tagay guddoonka baarlamaanka oo uu hogaaminayay gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh waxaana halkaasi ku fashilmay kulankii maanta loo ballansanaa inuu ka dhaco baarlamaanka loogana doodi lahaa arrimaha COVID-19 gudoomiye Maxamed Mursal ayaa markii uu fadhiga isaga baxay ka codsaday howlwadeenada baarlamaanka inay u soo qoraan xildhibaanada hor istaagay kulanka si loo marsiiyo xeer hoosaadka baarlamaanka xildhibaanada mucaaradka ayaa ku eedeeyay guddoonka baarlamaanka inay wadaan qorshe ay muddo kordhin ugu sameynayaan dowladda federaalka Soomaaliya ilo ku dhow guddoonka golaha shacabka ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu saxiixay qoraal ka dhan ah qaar ka mid ah xildhibaanada maantay buuqa ku furay guddoonka baarlamaanka gudoomiyaha ayaa saxiixay ilaa 15 xildhibaan oo aan ka soo qayb gali karin kulanka baarlamaanka isniinta soo socota isagoo ku eedeeyay inay carqaladeeyeen kulankii maanta looga hadli lahaa arrimaha COVID-19 magacyada xildhibaanada ayaan wali la shaacin balse waxay u badan yihiin inay yihiin kuwii ugu tunka weynaa xildhibaanada mucaaradka maantay qaska iyo khallaasaha ka dhex sameeyay baarlamaanka hortiisa xildhibaanada magacyadooda ayaa la dhigay albaabada laga galo Villa Soomaaliya si aysan uga soo qayb galin kulanka loo ballansan yahay isniinta soo socota oo la ogeyn ajandihiisa waxa uu yahay waxaana magacyada lagu wareejiyay askarta ilaalada u ah xarunta golaha shacabka lama oga sida uu saameyn karo kulankan dambe iyo inay imaan waayaan xildhibaanadan liiskooda la gudbiyay waxayna durba sheegeen inaysan ogolaan doonin go'aankaasi oo ay xasaanadooda cid ku xadgudbi karta aysan jirin wagaag buuqaasi markuu dhacay oo guddoonka baarlamaanku ay ka baxeen meesha xildhibaanada kala ra'yi duwan ayaa ka hadlay goobta iyagoo saxaafadda kula hadlay waxaana ka mid ahaa xildhibaan Ubax Tahliil Warsame waxay sheegtay in meesha ay soo weerareen maleeshiyaad tuuga ah oo lacag ka soo qaatay Imaaraadka iyo Kenya sida ay ku tilmaamtay xildhibaanada mucaaradka oo ay sheegtay inay kulanka hor istaageen waa sida ay hadal ku dhigtay waxaana ay tiri waxaan aad uga xumahay iyadoo maanta baarlamaanka la furay nimankii horey dalka u dhacay oo dalka soo cunay oo wasiirada ahaa inay maanta hor istaageen baarlamaanka furitaankiisa oo mooriyaan ay noqdeen ayay tiri xildhibaan Ubax Tahliil oo warbaahinta la hadlaysay xildhibaanada ayaa ammaan kala dul dhacday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo ay sheegtay in ay dalka geliyeen kala dambeyn iyo dastuur xildhibaanada oo aad u xanaaqsan ayaa sidoo kale sheegtay in gudoomiyaha aqalka sare ee mudane Cabdi Xaashi uu iscasilay isla markaana uu noqday gudoomiye xisbi isagoo iskaga tagay shaqadiisii gudoomiyaha aqalka sare maadaama haatan uu hogaamiye u yahay madasha la magac baxday badbaado qaran
maalin kadib oo ku beegan isniinta ayaa la filayaa in baarlamaanku uu mar kale kulan yeesho iyadoo kulankaasi laga filayo in si nabad ah ama nabadgelyo ah uu ku dhaco waxaana wararku sheegayaan in ajandaha shirkaasi uu noqon doono isla kii maantay baaqday COVID-19 arrinta ah in mooshin uu jiray oo ah muddo korin ilaa iyo haatan xogo rasmi ah ma sheegayaan in arrintaasi ay xildhibaanada ama guddoonka baarlamaanka ay wadeen inkastoo xildhibaanada mucaaradka ka kulaala siyaasadda ay sheegayaan ama ay ku andacoonayaan in baarlamaanka gaar ahaan guddoonka baarlamaanka ay wadaan qorshahaasi muddo kordhinta ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa horey u meelmariyey hanaanka doorashada dalka ee lagu heshiiyey 17 Sebtembar 2020 waxaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu horey u sheegay in wax kasta oo la soo gudboonaada ama heshiis laga gaaro dalka uu ku soo celin doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya hagaag markana madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa wali ku shiraya hotel ku yaala xarunta xalane dhexdeeda ilaa iyo haatanna xogaha aan ka helayno shirkaasi waxa uu sheegayaa in soo dhawaasho aad u weyn uu jiro oo qodobada qayb heshiis laga wada gaaray iyadoo inta badan madaxdu isku qancinayaan arrimaha la isku khilaafsan yahay iyo arrimaha la isku diidan yahay oo haddii ay ahaan lahayd qodobadii arrimaha guddiga doorashooyinka gobolka Gedo oo ah arrinta aadka u weyn sida weyn looga wada hadlayo maadaama siyaasadda gobolkaasi Gedo ay markan isbedel ku yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiis la gaartay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland oo xubin weyn ka ahaa maamulkaasi sidoo kalena ciidamo aad u ballaaran hogaaminayay dhankaasi waxa moodaa in dowladda ay culayskii badnaa ay halka ka jiray uu ka khafifay haatan madaxda maamul goboleedyada ay wararka aan ka helayna sheegayaan in ay socoto qorshe loo dejinayo hanaanka loo maamulayo gobolkaasi Gedo iyadoo horey guddiga farsamada ee ku shiray magaalada Baydhabo 16 Febraayo ay soo jeediyeen in guddi ku meel gaar ah oo ay soo dhisayaan odayaasha deegaanka loo dhiibo maamulka degmada iyo kan gobolka Gedo wararka ku soo kordhay shirkaasi waxaad ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan barnaamijyadeena soo socda dhanka kale xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxa ay faahfaahin guud ka bixiyeen kulankii gaarka ahaa ee maanta ay la qaateen madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee shirka uga socda magaalada Muqdisho gaar ahaan xarada Xalana afayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ay la wadaageen dareenka ay qabaan gaar ahaan xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo arrimaha doorashooyinka dalka oo ay sheegeen in ay ku wanaagsantahay in heshiis laga gaaro Daahir Geelle oo saxaafadda kula hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in hagardaamooyin ay soo gaareen doorashooyinka dalka heshiiska lagu ahaa kaasoo la saxiixay 17 Sebtembar sidoo kale musharax Daahir Geelle ayaa eedeyn u jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay in dib u dhaca doorashooyinka uu sabab u ahaa waxaana uu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada dalka ay dhankoodana kaalin ku lahaayeen dib u dhaca doorashooyinka dalka ugu dambeyntii waxa uu sheegay Daahir Geelle oo u hadlayay midowga musharaxiinta in madaxda dowlad goboleedyada ay la wadaageen in howlaha amniga dalka laga wareejiyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay u dhicin dhacdooyin la mid ah kuwii 19 Febraayo talooyinkan iyo ra'yigan uu soo jeedinayo Daahir Maxamuud Geelle ayaan la ogeyn inay qaadan doonaan madaxda maamul goboleedyada dalka inkastoo fikrada noocan ay la dhacsan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka falaqaynta arrimaha Soomaaliya oo inta badan aan kusoo qaadanay dhacdadii golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya daawada hadda channelka ku cusubtahay subscribe sar hadda hore noola joogto waad mahadsantahay dhamaantiin isku duuban waxaad leenahay nagala qayb qaato horumarinta channelka muuqaalka like saar sidoo kale ku share garee baraha bulshada intii karaankaaga ah dhamaantiin isku duuban waxaad leenahay nabadgelyo